tobankii Febraayo sanadkii 1984 waxay ahayd subax taariikhi iyo xasuus mug weyn ku reebtay qalbiyada bulshada ku nool ismaamulka Wajeer iyo guud ahaan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Inta u dhaxaysa 10 ilaa 14 Febraayo ayaa waxa ay shacabta ku nool ismaamulka Wajeer u yaqaanaan maalmihii mugdiga, maadaama xasuuqa Waagala uu socday ku dhawaad 5 maalmood. Xasuuqii Waagala ayaa waxa ku dhintay ilaa 5,000 oo qof, kuwaasi oo dhintay kadib markii qaar ayaga ka mid ah la gubay halka qaarka kalena ay u dhinteen haraad iyo dhaawacyo soo gaaray awgeeda. Dhacdadan ayaa waxa xilligaasi geysteen ciidamo ay dawladda dalkani Kenya ku amartay inay halkaasi ka fuliyaan howlgallo. Dhacdadani ayaa waxa ka soo wareegatay 39 sano, balse ilaa iyo haatan dumarkii iyo caruurtii raggoodii lagu gubay halkaasi weli ma helin xaqii ay ugu baahnaayeen dawladda. waxaan ilaa iyo haatan indhahoodii laga dheexani karaa ilmadii ka qabatay sanadkaasi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacaydu waa Cumar Cadow, gudoomiyaha dhalinyarta beesha Dugoodiye ee ku dhaqan wadanka Kenya. xasuusina aan rabnaa dhammaan wadanka iyo caalamka dhamaantiis xasuuqii soo gaaray walaalaha Dugoodiye ee ku dhaqan wadanka Kenya, gaar ahaan Wajeer oo lagu xasuuqay dad gaaraya ilaa iyo 5,000 oo rag gaaraya iyo haweenkii lagu faraxumeeyay iyo maantadii iyo xoolihii iyo hantidii lagu dhacay oo sababo loo dhacayna aan garanaynin iyo sababo ay dadka naftooda ku weeyeen ama loo xasuuqina annagana ilaa hadda aan garanaynin. ayaa maanta banaanbax aad ugu socday taariikh 10 ilaa maanta dhexdooda aad banaanbax ugu socday oo meel walba oo beeshan ay degan tahay iyo dadka u danqada xuquuqul insaanka u danqada dhamaantood ay meel walba ka wadeen. marka saas darteed ayaa maanta aad banaanbax u socday. marka waxaan codsanaynaa dhammaan dawladda iyo meel nin walba qusayso dhiig marka la daaro waxa la dhahay waa qoyin yahay. annaga waxayna soo gaaray iyo dulumkii iyo dhibkiina soo gaaray mar aad qalbigayna ka baxayo malaha, mar aan loomi karnana malaha, mar aan hilmaami karnana malaha. waa dulum aad u weyn, waa dulum oo loo geystay beesha, sababo loo geystin aan ogeen. dad iska reer miyiga ah xoolahooda iska dhaqanayaan, dawlad iyo hab dhaqankeeda aan garanaynin loo geystay, sababo loo geystina aan anaga hadda aan garanaynin. ilaa hadda waa dareemi kartaa murugida ay leedahay qofkaadi ama dadkaadi oo meel iskugu keenay oo la gubay ama